Bismillahi Raxmaani Raxiim. Carabkaaga ma leeyahay jeexjeex ama dubka inuu ka qaadmay oo kale sida sawirada ka muuqda? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adiga kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. In carabka u ekaado labadaas qaabood mid ka mid ah waa mid bulshada ku badan, dad badan walwal ku abuura, iyagoo isbitaalada u yimaado talo raadin. Sawirka koowaad waa carabka oo dildilaac ama jeexdimo yeesha. Xaaladdan oo afka qalaad lagu dhaho fissured tongue waa mid ku badan ragga markii dumarka la barbar dhigo. Xaaladdan dhibaato ma keento, wax cudur ahna tilmaan uma ahan, badanaana fir iyo dhaxal ayay ku timaadaa. Dhibka kaliya ay keeni karto waa in jeexjeexdimahaasi ay galaan haraaga cuntada, waana sababta dadka carabkoodu sidan yahay ay uga sheegtaan afshiir iyo carabka oo bararo ama xanuuno. Sidaa awgeed waa in si joogto ah carabka loo nadiifiyo mar walba wax cuntid. Sawirka labaad waa carabka oo goobaabino kala midab ah yeesha, sidii in diirka laga qaaday oo kale. Xaaladdan oo iyadana afka qalaad lagu dhaho geographic tongue, maadaama carabka kala midabka u ekaanayo